السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك دمان walaalahayga muslimiinta meel kasta adduunyada ka joogaan. Laba qodob baan jeclahay inaan walaalahay la wadaago. Mid wax weeyaan inaan ugu hambaliyeeyo ciidda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala bishii barakaysnayd inuu inaga aqbalo ee shahrul qur'aan Ramadaan ayaan Ilaahay weydiisanaynaa. Talabaadna wax weeyaan waxyaabaha yare inta badan qofku isagoonan aqoon lahayn oo aqoon diineed lahayn culimo lahayn oo ila mid ah oo ma garanaysaa waxyaabaha baraha bulshada iyo waxyaabahaas oo cid kasta oo culimo ku aflagay arrinkaas oo laga fiican yahay. haddaan markaa ku horeeyo ciidda wata kulley ciid mubaarak Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa wuxuu inoo soo dhameeyey bishii barakaysnayd ee Ramadaan. bishaasi waxay ahayd bil qaaliya oo runtii inaan dambe gaadhinay in kale Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ogyahay. Ilaahay naga dhigo kuwii cumriga u dheereeyay ee khayrka ugu wanaagsanaaday. bishaasi saxaabadu siday odhan jireen baynu odhanaynaa 6 bilood markay bishaasi ka baxdo ay Ramadaan ka sokayso ilaahu acmaashii aan bishaa samaynay naga aqbal bay saxaabadu odhan jireen. 6 bilood markay ka hadhana waxay odhan jireen ilaahu Ramadaan na gaarsiin. marka salaad kasta iyo mar kasta oo aynu khayr ku jirno Ilaahay subxaanahu wa ta'aala in nimcada bishaa barakaysnayd waxaan samaynay naga aqbalo ayaan Ilaahay weydiisanaynaa. maaha Ramadaan way ka baxday, Ramadaan way baxday, way tagtay. marka waxaan galay sanadka qaybtiisii kale maaha inaynu markasta maanka ku hayno waa qof laga aqbalay Ilaahay baa garan. laakiin qofka khayrka sii joogtay culimadu yiraahdeen waa dadka laga aqbalay. marka kulley waxyaabihii qofku ka toobad keenay bishaasi uu iska daayay in wax loo baahan yahay oo hadda kadib page-ka cusub uu furay uu ku wado Ilaahayna subxaanahu wa ta'aala. ta kale waxa weeyaan qodobkii labaad ee howlaha khilaafaadka. wata kulley culimada oo dhan baa makanaysaa waxyaabaha khilaafaadka iyo kolba halkay wax marayaan majaraha cidda inoo haysa waa culimada. anugu waxaan ku talinayaa maadaama oo aynu isku wada midnahay inaynu culimada noocu doonaba sheekhu ahaadee inaynu horta nabadgelino oo qofka bini aadanka aakhiraynu soconaa adduunyadaynu ka tegaynaa colaytanka iyo dhibaatadaas iyo wixii culimo wax laga sheegayo horta ma ogtihiin mase ognahay in horta culimada hilibkoogu samaysan yahay. qof culimaa wax ka sheega warkiisu ma yar. qofka caadiga uu ka duway qofka caadigeed wax ka sheegto xantiisa iyo xantaad qof culimo ah aad ka sheegto waxaan ku aad buu kala duway. waxaan ku talin lahaa inagu maadaama dad shacaba oo runtii culimada ku xiran diinta waan u baahannahay. diintu waa nolosheenii iyaga majaraha inoo haya wixii ishkaal inaga galay aynu fahmi weyno iyaga weydiina. waxyaabo badan baana kolba soo biiray oo cilmi iyo aqoon diineed u baahan. marka culimadaas wali waxaan odhan lahaa niyow iyaan lagu fududaan. waxaanaad arkaysaa walaalahayga baraha bulshada isticmaala qof walba wixii ka guuxayay in uu ku qorayo baraha bulshadiisa. manaa Facebook waxaan u maleeyay meel uu qofku ku nafisay inay noqoto oo wixii gubayay uu macnaha kaga hadlo. marka kulley waxa qofku qoraya ama ku hadlayo waxaan ma yihiin wax aakhire ku dhaweynaya isagoo waxa dambi ku galayso qofku inuu intaas weydiiyo ayaa muhiim ah. masaayisha iyo sida tahay iyo sida wax u dhaceen iyo sanadkan horta sanad khayr qabo ahaa iyo waxyaabihii isbedelay kulley culimada ka hadashay taana anigu intaasaan ku dhaafay. laakiin dhammaan walaalahay waxaan leeyahay kulli caam wa antum bikhayr. halka qodob ee raacini waxa weeyaan bisha Ramadaan markii la qiyaasay waxa lagu qiyaasay in ay tahay 300 oo maalmood baa lagu qiyaasaa macnaha 10 bilood taqriiban. 6 shuwaan qofka ku dara min 10 baa loo xisaabinaya. marka waxa weeyaan 360 sanadkaba qofkii soomanaa. marka taani ha lagu dadaa.